maxkamadda gobolka Sanaag ayaa xukuumay isugu jira dil xadhig iyo ganaax lacageed ku xukuntay 3 nin oo lagu soo eedeeyay ka ganacsiga tahriibayaasha iyo xadgudubyo ka dhana muhaajiriinta. 3 nin oo laga soo qabtay xeebta Xarshaw ee gobolka Sanaag xilli ay wadeen doon ay saarayeen dad tahriibayaal Itoobiyaan ah kuwaas oo ku sii jeeday dhinaca dalka Yemen ayaa fadhi ay maxkamadda gobolka Sanaag ka yeelatay labadii maalmood ee u dambeeyay waxa ay gaadheen go'aamo kala duwan waxaana go'aamadoodii u dhignaayeen sida tan magaca ummadda Soomaaliland maxkamadda gobolka Sanaag qaybteeda tashiga asay section waxay u aqoonsatay Ahmed Umar Abdirrahiin Canjeex inuu yahay dambiile waxayna ku heshay faldambiyeedka ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta guud waxayna ku xukuntay dil toogasho ah wuxuu ku mudahaystay markii la cadeeyay inuu dad nool uu badda ku riday waxa kale oo ay maxkamaddu u aqoonsatay Maxamed Bashiir Maxamed dambiile waxayna ku xukuntay 1 sano oo xadhig ah iyo 15 milyan oo shilinka Soomaaliland oo ganaax ah ninkaas wax la sheegay inuu garaacista xaaladeedu ahayd in dadka la badbaadiyo xilligii laashku qarraqmay ulihii lagu fariisinayay maxaan ku dhaahdaa iyadoo looga jeedo in la sii noolaado uu si arxan darra ah uga qayb qaatay oo dadka nool ee uu Canjeex badda ku riday laftigiisa markii ay noolaayeen ee laashka dul saarayeen la garaacay waa sababta culayska xaddiga ganaaxa inta leeg loo saaray 3 Maxamed Yaasiin Cali waxay maxkamaddu u aqoonsatay dambiile waxayna ku xukuntay 1 sano oo xadhig ah iyo ganaax dhan 5 milyan oo shilinka Soomaaliland sababta ganaaxiisu uu yar yahay uu uga yar yahay ganaaxa ninka kale waxay tahay ninkaas wuxuu qayb ka ahaa tahriibinta oo dambi ah iyo doonta yar culayska xaddiga doonta yar dadka lagu xiriiriyay oo isna qayb ee laashkan u jeeda uu qayb ka ahaa laakiin se wuxuu muujinayay naxariis aad u fara badan xilligii ay maxaan ku dhaahdaa dhibanayaashu kacayeen ee buuqayeen wuxuuna ku dhawaaqay sida la cadeeyay war qof nool yaan badda lagu tuurin 4 laashka waxay maxkamaddu ganaaxday lacag dhan $6,000 eedaysane oo aanu ku eedaynay in ay tahriibin laash ay ku qaadeen 15 mitira 106 qof oo ah dad bini aadan oo Itoobiyaan oo muslimiin magaraysa u badankoodu yihiin waxay ka qaadeen oo u diideen cuntadii iyo biyihiiba waxay garaaceen oo ku garaaceen badda dhexdeeda gacmahooda oo ay ku dhinteen qaarkood waxayna ku gureen badda halka waxa ku dhintay 37 qof oo dadka kamid ah وبرخد محمود قدي تلفزيون كعالمي Somali News TV مقالة عرقابوب